taariikhdu markay ahayd 5 bishii Oktoobar 2021 talaadadii la soo dhaafay waxaa la sii daayay Windows 11 oo ay soo saartay shirkadda Microsoft. Windowska waxaa loo yaqaanaa Microsoft Windows ama MS Windows, balse inta badan waxaa loogu yeeraa oo dadku u soo gaabsadaan Windows. Windowsku waa nidaam howlgal ama software oo ay nashqadaysay shirkadda Microsoft. Microsoftna waa shirkad tiknoolajiyadeed oo caalami ah oo soo saarta softwareada kombiyuutarka oo ay ka mid yihiin Windowska aan hadda ka hadlayo. Sidoo kale qalabyada korontada ku shaqeeya electronic devices ay soo saartaa sida kombiyuutarada iyo wixii la midka ah. Aan u soo laabano nidaamka Windows. Nidaamka Windows waa mid ku ogolaanaya inaad adeegsato kombiyuutarkaaga. Inta badan waxaa lagu soo dejiyaa oo ay la socdaan kombiyuutarada shakhsiyadeedka cusub ama loo yaqaano new personal computers. taas ayaana ka caawisay Windowska inay noqdaan operating system-ka ugu caansan adduunka. Windowska wuxuu soo maray taariikho kala duwan. Windows 11 waxaa ka horeeyay Windows kala duwan oo ay ka mid yihiin Windows XP oo la soo saaray 25 Oktoobar 2001. XP waxaa ku xigay Windows Vista oo isna la soo saaray 30 November 2006. Microsoft waxay ku fashilantay Windows Vista balse darbadii waxay soo saartay Windows 7 22 July 2009. sidoo kale 26 Oktoobar 2012 Windows 8 ay soo saartay Microsoft. 3 sano kadib 29 July 2015 Microsoft ay soo saartay Windows 10. Microsoft ayaa ku adkaysatay in Windows 10 uu noqon doono kii ugu dambeeyay oo ay soo saarto oo aysan soo saari doonin Windows kale, balse ugu dambeyn go'aankeedii waa ay ka laabatay oo bishan Oktoobar 5 waxay soo saartay Windows 11. Windows 11 ayaa Windows ugu dambeeyay hadda oo ay soo saartay shirkadda Microsoft, balse wuxuu leeyahay shuruudo laga maarmaan ah qofkii rabo inuu ku shaqeeyo oo ay ka mid yihiin in processor computerkaaga uu yahay 1 gig ama 1 gigahertz ugu yaraan ama wax ka badan. Sidoo kale inuu yahay 64 bit ama 64 bit processor computerkaaga. Sidoo kale inuu yahay computerkaaga RAM-kiisa ugu yaraan 4 GB ama wax ka badan. Sidoo kale inay ka banaan tahay 64 GB ama wax ka badan. sidoo kale waxaa muhiim ah in Trusted Platform Module-ka ama TPM-ka version 2.0 inuu yahay. sidoo kale display-ga computerkaaga waa inuu yahay 720 pixel.